Maxay noqdeen dadkii la waayay ee Koonfur Afrika xiriirka daahsoon ee gumeysiga dadkii hore? Dhulka Koonfur Afrika waxa uu leeyahay taariikh dheer oo qarsoodi ah oo ka mid ah dadkii la waayay xilligii gumeysiga. Dadkan la waayay waxaa ka mid ahaa ururo badan, qabiilo, iyo bulshooyin kale oo maray xaalad murugo leh, iyagoo la kulmay dhibaatooyin ka dhashay gumeysiga, dagaalada, iyo isdhexgalka bulshada. Xiriirka caalamiga ah ee Koonfur Afrika waxa uu noqday mid muhiim ah oo ku saabsan ganacsiga iyo siyaasadda xilligii gumeysiga, waxaana ay ahayd meel lagu dagaallamo gumeysi ku saleysan qabiilo iyo kooxo, halkaasoo la rabay in la helo kheyraadka dabiiciga ah sida dahabka iyo macdanta kale. Dadka la waayay ee Koonfur Afrika waxaa xasuuqay dhowr dhinac oo isugu jiray gumeysi, dagaallo qabiil, iyo nidaamyo cadaalad darro ah oo ay wadeen reer Yurub, gaar ahaan gumeystayaashii Ingiriiska iyo Booriska. Sababta ugu weyn ee keentay in dadkani la waayo waxa ay ahayd xilligii gumeysigii reer Yurub waxa ay qaadeen tallaabooyin xun oo ka dhan ah dadka asalka ah ee Koonfur Afrika, waxaana ka mid ahaa in dhulalkooda xoog loogu qaato, la iska dhaafiyo dhaqamadooda, iyo in la gumeysto dadkii diiday inay ka hoos shaqeeyaan nidaamkaas. Dad badan ayaa lagu qasbay inay ka guuraan dhulkooda si ay uga baxsadaan dilka iyo dhibaatada gumeystayaasha. Isir nacaybka iyo kala soocidda nidaamkii apartheid ee Koonfur Afrika waxa uu kala qaybiyay bulshooyinka, iyadoo dadka madow loo yaqaanay in aanay la mid noqon karin kuwa caddaanka ah. Dadka asalka ah waxaa loo qaaday dhulka bannaanka ah, halkaas oo intooda badan ay ku noolaayeen xaalado adag oo saboolnimo ah. Arrintani waxa ay keentay in dad badan la waayo oo ay u lumaan sababo la xiriira tacaddiga iyo xasuuqa. Sidoo kale waxaa qayb ka ahaa dagaalada sokeeye ee ka dhacay Koonfur Afrika, gaar ahaan intii lagu guda jiray gumeysiga iyo xilliyadii hore ee qarnigii 20aad, ayaa sababay dhimasho badan iyo in dad badan la afduubto. Qaar badan ayaa u baxsaday dhulal ku yaala meelo fogfog ama la qaatay si looga faa'iideysto awooddooda shaqo ee beeraha iyo mashaariicda kale ee gumeystayaasha. Dadka asalka ah ee Koonfur Afrika iyo qaar badan oo ka mid ah dadkii ku soo duulay dhulkan ayaa isdhexgalay, taas oo keentay in dhaqamadooda iyo aqoonsigooduba ay lumaan amaba la waayo, waxaana loo aqoonsaday in ay yihiin dad aan la arag amaba la waayay. Dadkii la waayay kuma dhammaanin hal dhacdo, laakiin waxaa si tartiib tartiib ah loo burburiyay, iyada oo lagu qasbay inay ka tagaan dhulkooda, iyadoo qaar la afduubtay, qaarna ay ku dhinteen dagaalada iyo tacaddiyada. Waxayna noqdeen kuwo si rasmi ah looga waayay dhaqankooda iyo bulshadooda. Sidoo kale waxaa qayb ka ahaa dadka ku soo duulay Koonfur Afrika Booriska. Jumladda Booris waxaa loola jeedaa dadka reer Holland ee u haajiray Koonfur Afrika qarnigii 17aad iyo qarnigii 18aad, kuwaasoo noqday beeraley xoog badan oo qabsaday dhulal badan oo ka tirsan Koonfur Afrika. Waxa ayna ahaayeen dad asal ahaan ka yimid Holland. Ereyga Dutch af ahaan waxa uu ka dhigan yahay beeraley, marka magacan waxaa loo isticmaalay in lagu qeexo beeraleyda Dutch-ka ee qabsaday dhulka Koonfur Afrika, kuwaas oo noqday dad ku xoog badan deegaankan. Si kastaba ha ahaatee, Boorisku ma ahan dadkii u dhashay Koonfur Afrika, waa dadkii Hollandeyska ahaa ee degay halkaas. Markii dambena waxa ay noqdeen qayb ka mid ah bulsho gaar ah oo Koonfur Afrika degan oo loo yaqaano Afrikaners. Marka la soo koobo, Boorisku waa dadkii ka yimid Holland ee degay Koonfur Afrika, laakiin ma ahan dadka u dhashay Koonfur Afrika. Waxaa xusid mudan in dadkani la helay waxayna noqdeen bulsho Afrikaner ah oo ilaa maanta weli ku nool gudaha Koonfur Afrika. Waxa ayna dhiseen 2 gobol oo madax bannaan oo la kala dhaho Transvaal iyo Orange Free State,
waxa ayna qayb weyn ka ahaayeen taariikhda gumeysiga iyo isir naciibka Koonfur Afrika. Inkastoo ay ahaayeen Hollandaise, waxa ay dagaal la galeen Ingiriiska oo isna ka talinayay qaybo kale oo Koonfur Afrika ah, taas oo ugu dambeyntii horseeday dagaalka Angola Boer. Hollandaisku waxa ay wadeen xasuuqyo isir naciib ku saleysan oo ka dhan ah dadka asalka ah si ay u qabsadaan dhulka kana dhigaan mid ay ku shaqaystaan. Qaar badan oo ka mid ah qabiilada asalka ah ayaa lagu qasbay inay dhulkoodu ka guuraan ama lagu shaqaysto. Hollandaisku waxa ay dagaalo badan la galeen boqortooyada Ingiriiska, gaar ahaan intii lagu guda jiray dagaalkii Angola Boer 1899 ilaa 1902, taasoo keentay guuldarro culus oo ay Hollandaisku ka soo gaartay dhanka Ingiriiska, waxaana lagu qasbay in ay aqbalaan maamulka Ingiriiska. Inkastoo laga guuleystay, Hollandaisku waxa ay weli haysteen qaybo badan oo ka mid ah dhulka Koonfur Afrika, waxayna qayb muhiim ah ka ahaayeen siyaasadda isir naciibka ee dalkaas oo soo jirtay ilaa bartamihii qarnigii 20aad. Dad badan oo reer Koonfur Afrika ah ayaa lagu qasbay inay ka qayb qaataan dagaaladan aan shuruucda lahayn, halka gumeysiga Ingiriisku uu kala qaybiyay dadkan, taasoo keentay in dad badan la waayo ama lagu dilo dagaalada iyo xasuuqyada. Gumeysiga iyo xaqdarrada dadka lagu waayay waxa ay la kulmeen cadow ku saleysan diinta, dhaqanka iyo bulshada. Xaqdarrada iyo qabsashadu waxa ay keeneen in la waayo dad badan iyagoo ka mid ah dadka dhulka u dhashay. Raadinta dadka la waayay, cilmi baarayaashu waxa ay ku qoreen taariikhda dadkan la waayay iyagoo isha ku haya xogo la xiriira gumeysiga. Qoraallada qadiimiga ah iyo xogaha laga helay dhulka ayaa ah kuwo muhiim ah si loo fahmo meesha iyo sababaha keenay in dadkani la waayo. Raadinta dadkii la waayay ee Koonfur Afrika waxa ay muujinaysaa taariikhda dhulkan oo aan la ilayn karin. Cilmi baarayaashu waxa ay aaminsan yihiin in loo baahan yahay in la xafido xasuusta dadkaas, iyadoo la raadinayo caddeymo dheeraad ah oo muujinaya waxa dhacay iyo halka ay ku dambeeyeen. Gumeysiga reer Yurub ee Koonfur Afrika waxa uu sababay in la qabsado dhulka dadka asalka ee Koonfur Afrikaanka ah. Dagaal iyo khilaafyo ku saleysan awoodda iyo kheyraadka dabiiciga ah ayaa keeni jiray in dad badan la dilo ama lagu qasbo in ay ka guuraan guryahooda. Tusaale ahaan, xilliyadii dagaalkii Anglo-Zulu iyo Boer Wars, dad badan oo asal Afrikaan ahaa waddankan ayaa la waayay noloshoodii iyo dhulkii ay degganaayeen. Sidoo kale waxaa ka mid ahaa xaqdarrada iyo cadaalad la'aanta. Qabsashada dhulka iyo qabsashada kheyraadku waxa ay sidoo kale keeneen xadgudubyo ka dhan ah dadka asalka ah. Haddii aan lahayn wax ka hortag ah, dadka asaliga ah waxay la kulmeen cadaadis, caburin iyo xadgudubyo aan la aqbali karin, taas oo ka mid ah sababaha keenay in dadkani la waayo ama la dilo ama la afduubto. Isdhexgalka bulshada ee u dhexeeyay qabiilo kala duwan iyo dhanka gumeysiga ayaa sidoo kale saameyn weyn ku yeeshay dadkan. Qabashada dhulka iyo xadgudubyada cadaalad darrada ah waxa ay keentay in la kala fogeeyo bulshada, taasoo ugu dambeyntii sababtay in dad badan la waayo ama ay halkaa ku dhammaadaan. Siyaasadaha dowladeed ee gumeysiga ayaa sidoo kale ka mid ahaa sababaha waaweyn ee sababay in dadkaasi la waayo. Waxaa jira ururo badan oo bulshada asalka ah oo la baabi'iyay ama aan la aqoonsan, taas oo keentay in ay waayaan meeshii ay ka yimaadeen iyo aqoonsigoodii. Dadka la waayay ee Koonfur Afrika oo ay ka mid yihiin qabiilada asalka ah waxa ay ku dambeeyeen xaalado kala duwan oo xanuun leh. Dagaalada sokeeye, gaar ahaan kuwa ka dhacay xilligii gumeysiga, waxa ay sababeen in dad badan oo asal ah ay la kulmaan dilal xaqdarro ah iyo xadgudubyo ka dhan ah dadweynaha ayaa sababay in dad badan la dilo
si loogu xakameeyo aagagooda ama loo dilo sababtoo ah colaadaha ka dhashay qabsashada dhulka. Qaar ka mid ah dadka la waayay waxaa laga yaabaa in la afduubtay, iyadoo qaababka afduubkaasi badanaaba lagu sameeyo dadka danyarta ah ama kuwa aan awoodin inay isdifaacaan. Afduubku waxa uu sidoo kale sababay in dadka lagu qasbo inay ku biiraan kooxo ama hogaamiyeyaal kale, taasoo keenaysa in ay lumiyaan aqoonsigoodii iyo qabiilkoodii. Sidoo kale, dadka asalka ah waxaa laga yaabaa in lagu qasbay in ay ka shaqeeyaan mashaariicda la xiriirta gumeysiga, sida ka shaqaynta kheyraadka dabiiciga ah ama dhismaha, taas oo keentay in ay waayaan xorriyadooda iyo awooddooda. Ka qayb qaadashadoodu waxa ay sababi kartaa inay noqdaan kuwo aan awoodin in ay helaan fursad ama xakameyn, sidaas darteedna waxay dhammaantood u arkaan in la waayo. Gumeysi iyo nidaamyo cadaalad darro ah ayaa sababay in qabiiladan la kala fogeeyo, taas oo keentay in dad badan la waayo. Bulshooyinka kala duwan waxa ay isdhexgalaan, waxna iska beddelaan, iyadoo dad badan laga yaabo in ay noqdaan kuwo aan la aqoonsan ama si buuxda loo kala saari karin deegaanka dadka asalka u degganaa. Qabyaaladda ayaa sidoo kale kaalin weyn ka ciyaartay xasuuqii dhacay. Qabiilooyin badan oo asal ah ayaa la beegsan jiray, taas oo keentay in qaar badan oo ka mid ah dadweynaha la waayo ama ay ku dhintaan dagaalladaas.